warqadani waa fake ciddii soo saartay iyo halka laga soo saaray waa been abuur cad ciddii soo saartay ayaana looga fadhiyaa dilka Faarax Aydid Allah u naxariistee weerarka Khaatumo iyo ujeedada laga leeyahay digniin reer Khaatumo meel kasto aad joogtaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhamaan wada Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta aad joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta oo in maanta isku dultaagayno weerarka qaawan ee lagu soo qaaday maamulka Khaatumo dilka Faarax Aydid kiiskan iyo cidda ka dambaysa warqadda been abuurka ah ee feega ee media la soo galiyay iyo halka ay ka socoto waxaan ka codsanayaa barnaamijka dug soo gaarnaa si shargeysida tii salaad ku joogtan u soo tukaa dikra nabi ku salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxa shalay lagu dilay magaalada Laascaanood nin la yiraahdo Faarax Aydid ninka waxa la sheegay inuu ka tirsanaa oo uu yahay nin haysta passport citizen Ethiopian ah kana shaqeeya qunsuliyadda ku taal Garowe dilkiisi kadib waxa la soo saaray warqadaasi media la soo galiyay lagu cadeynayo inuu ninkan yahay waxa weyn passport citizen Ethiopian haysta qunsuliyadda ka shaqeyn jiray warqadaas iyo waxa ku qoran waa been abuur cad waa fake Faarax Aydid Allah u naxariistee horta waa nin reer Khaatumo ah waa nin dhulbahanta ah waa nin cali gariya sidaan xogta ku hayo eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii reer Khaatumo ama ninkaas uu ka dhashay marxuumka Allah u naxariistee markii la wareystay qof cadeeyo waa la waayay ninkaas inuu qunsuliyad Ethiopia leedahay uu ka shaqeeyo hatta meel ay ku qoran tahay hatta qof sheegay ilaa ay hadda lama hayo haddaba Faarax Aydid yaa dilay sidee loo dilay yaa ka dambeeyay sababta dilkiisu maxay ahayd ujeedadu maxay tahay Faarax Aydid ciddii dishay iyo kiisku sidoo u dhacay waxa ku maqan oo laga sugayaa maamulka Khaatumo State golaheeda amniga ayaa kiiskaas koorta ku hawlan oo aynu ka warsugayna imma sababta loo dilay iyo ujeedada iyo waxa looga gol leeyahay ayaa rabnaa inaan isku taagno iyo warqadan halgaada ah ee markii Faarax Aydid meedkiisa la helay isla markiiba soo baxday oo been abuurka ah ilaa 7 qodob oo warqadaasi been abuur ku tahay eegay oo cadeyn buuxda ku tusinaysa in warqadaasi wax allaale iyo wax ka jira aan jirin ayaa la hayaa haddaba warqadan cidii soo saartay ee media keentay ayaa looga fadhiyaa cidda soo qortay meesha uu ka keenay cidda uu ka soo xigtay iyo cadeymaheedu buuxa iyada taalkaas ku dhaafaya waxa la yiri qofka sheega ma dhaafto gudaaduna waa ku jirta qodobna waa ku haya baladeegi qofka sheega ma dhaafto qofkii warqadan media keenay ayaa cadeynteeda horta looga fadhiyaa imma sababta waxaad ogtiin maamulka Khaatumo State marxalado badan buu soo maray ra'iisul wasaaruhu markii uu tagay afka la furtay waliba cabaad weynta aad bay u qeylinaysi Hargeysa iyo Burco oog ba ka baxaysay waxa social media la soo galiyay foosto la soo riixay oo ah meeshaas amni maaha Cabdirashiid Cali Sharmaah ka lagu dilay madaxweynihii Soomaaliya hadda ka hor lagu dilay waa dhacdo 60 sano ka hor dhacday ayaa la soo cusboonaysiiyay foosta la soo riixay markaas oog la isla shiday reer Khaatumo waxay cadeeyeen iyo maamulka Khaatumo State ee SSC in ay Khaatumo iyo Laascaanood ay amni tahay waxa ka soo degay ra'iisul wasaarihi waxa ka soo degay golihii wasiirada oo dhameystiran arrimo gudeed iyo arrimo dibadeed iyo mid waxa weeye caafimaad iyo mid kaleesa waxbarasho dhammaan iyagoo wasiiradii golihii wasiirada iyagoo aan staff wadan ayay maqaaxiyaha Laascaanood shaaha ka cabayeen oo waxa weeye jabdhanka iyo caanaha isku shaqeeyeen oo halka waxa weeye amni iyo qurux iyo sharaf iyo karaamo ay ku soo degeen kagana tageen dilkan marka waxaad ogtiin qoladan SNM ee argagixisada ah intii ay Laascaanood joogeen mudadii 15 sano ahayd inay ku dileen 219 qof oo miidii eegay iyo madaxdii iyo aqoonyahankii reer Khaatumo habeen walba in madaxa lagu dhufanayo oo ay iyagu dilayeen si marka muddo badan waxay soo celcelin jireen bari dhexdaas inaad xasuustaan in kala mooyaane waatay oran jireen Laascaanood waxa lagu dilay nin aqoonyahana ganacsada weyn oo Laascaanood lagu dilay dhulbahanta iyaga isdili jiray haddana been abuurkii waatii ay shaqeyn weyday oo habeen walba oran jireen nin baa lagu dilay gabadh baa lagu kufsaday oo la dilay sidii in macnaha Hargeysa iyo Burco aan cidna lagu dilin cidna lagu kufsan kufsiga ka dhaca Hargeysa habeen walba 30 gabdhood ayaa waxa weeye lagu faraxumeeyaa oo lagu dilaa
laakiin mood baa la galaa gabdhaha xaqooda iyo waxa weeye dulmiga loo geystay cid ka hadashay ma jirto adduunku yaanu ina maqal baa la dhahaa baladeegi intee hore jiray laascaanood baa gabadh lagu kufsaday gabadh baa lagu dilay aqoonyahan baa la dilay nin ganacsade weyn ah degdeg bay ku soo qoriyeen ganacsade weyn oo magaalada laascaanood lagu dilay wixii markii ay shaqayn weyday hadda waxaa la rabaa in la bilaabo in dadka la laayo nimankani maadaama siyaasad ahaanna aan kaga adkaanay dagaalna aan kaga adkaanay waxa la dagaalku waa 12 nooc isku suhaadka ugu dambeeya nimankan isku suhaadka waa kaga adkaanay siyaasadina waa kaga adkaanay wax la yiraahdo marka gaado dagaal shaanshiyeed waxa Soomaalidu tiraahdo qaandaan reerka waxay u soo saareen dagaal shaanshiyeed wax la yiraahdo eegay oo waxa weeye oo gaado inay dadka ku laayaan waxay adeegsanayaan mid kasta oo axmaqa waxay adeegsanayaan lacag waxay adeegsanayaan argagixiso waxay adeegsanayaan sun wax allaaliya wixii maamulka qaatimo lagu dhibaateyn karo oo dhan ayaa la adeegsanayo marka waxaan rabaa halkan inaan mid digniin ah oo fariin adaga u mariyo khaasatan shacabka reer khaatimo adduunyadan aad maanta arkaysid ee amniga iyo meel kasta oo nidaam iyo amni ka jiro ugu way dawladda ama xukuumadda markaa joogtaa sabab uma aha dal kasta deegaan kasta iyo meel kasta iyo degmo kasta waxa ilaashada shacabkiisa ilaashada dadka reer khaatimo khaasatan caasimada ku nool magaalada laascaanood indhihiinu ha furnaadaan ciidanka idinku waa inaad ka horeysaan waa inaad hotel kasta iyo meherad kasta iyo guri kasta iyo wada kasta iyo dariiq kasta iyo goob kasta iyo goor kastaba waa inaad heegan ahaataan waa in indhihiinu furnaadaa waa in caqligiinu furnaadaa waa in maqalkiinu furnaadaa waa inaad waxa weeye inta ciidanku amniga sugaya in ka badan inaad idinku sugtaan cidii aad garan weydaan ee magaalada soo gasha qof waliba guri walba guriga ku xiga cida ku nool inta degan waxa ku soo kordhay waa inay yaqaanaan oo gartaan oo baadhaan dariskaaga haddii qof kale maanta yimaado oo ku soo kordho eegay waa inaad og tahay adigaaga la dariskaa qofkani inuu reerkan ka tirsan yahay inay qaraabo yihiin inuu gabadh ka qabo in waxa weeye qarasayay ehel ay yihiin inuu marti meel kale ka yimi inuu yahay ujeedada u socdo xogta waa inaad waxa weeye aad og tahay waa midka aad ku badbaadino waa midka magaaladeena iyo deegaankeena iyo maamulkeena uu ku badbaadayo maanta adduunyadii maanta bahla galeen bay noqotay bal iska daayay kan dadka kuugu xiga eegay ayaa waxa weeye sun lagugu soo dhibaya miino lagugu soo xidhay adduunkii maanta wuu xumaaday wax kasta oo maamulkeena iyo magaaladeena waxa weeye lagu carqaladayn karo oo lagu xumayn karo eegay laascaanood maanta waa magaalada ugu amniga badan geeyga Soomaaliyeed bal Hargeysa ka amni badan tahay laakiin lama rabo waxa la rabaa habeen walba inta qof la dilo in shaabad khaatimo lagu dhufto maxaa hadda warqada la soo saaray maxay tahay taqaana sarkaal passport Ethiopian haysta oo citizen Ethiopian haye oo ka shaqeeya qunsuliyadda Ethiopia oo lagu dilay laascaanood bal eeg gooja cadaa la dhigay aqligaagu waa inuu shaqeeyaa ninkan inta la dilay baa la yidhi baa gooja cadda la dhigay deedna saacad kadib mise 30 daqiiqo kadib soo baxda warqad laalaysa oo la leeyahay citizen buu ahaa Ethiopia buu ahaa qunsuliyaddu ka shaqeyn jiray markii arrinkii aan baadhnay oo aan ka daba tagnayna hal qof oo waa la waayay bal iska daa eheladiisii dad wareystay ayaa waxay sheegayaan waa ehelada marxuumka Allah u naxariistay Faarax Aydid weligay kuma aan maqal bedel inuu qunsuliyadda ka shaqeeyo Ethiopia ee garow ku taala weligay ma aan maqal hal qof oo soo fadhiista oo yiraahda qunsuliyaddu ka shaqeeyaa ma jirto bal iska daa warqadan sida ay u qoran tahay Ethiopian waxba uma qoraanba qofka Ethiopianka marka xil loo magacaabayo Ethiopianku dhaqan bay leeyihiin inoo kala maaha Soomaalidu kala maaha luuqadooda ku qoraan qofka Ethiopianka marka loo magacaabayo xil loo magacaabayo qofku citizen Ethiopian yahay farta Ethiopianka lagu qoraa
فرت إنجليز كلهم قرأ ورقدنا حكوا قرأ فرق إنجليز بل إسكت اللمبر بيكون حجرة ورقدنا أو كقرن حيالة بدن أو فيك أو من الأول أو من أي كقرن تهي أنا تشرين أو الربعين لقوا صورة حماية ما ملك خاتم استيد مجال الله سبحانه الله قد يقول وحلا أركي وما تقول بس وتبي بقول كن أوقف بايمي إيجي أو وما الصومالي دل يدبت بمجال الله سبحانه دوي بحسن تمرك رئيس الوزراء حمزة عبد البرهيمي وقلا وسيرده يمادين وي بحسنتي مركزة أمنية هي فرحتها هي شرفتها هي قبل ماذا ماشى كده على أمة الصومالية ما شاء الله تري حل دي إياه ولا هذين إياه وإنتاس وحنا وحشوا تشرينا بأحيد هبين والبوحس يسوق ورتشرين عيد كستا أو النعب هرمرك خاتم استد أيها واحد سوق ورتشتي ما قادرين تحسستاني إنكره شم بلود كور لح بلود كور إيجي وراقف فيجا يوربحين فيجا ميديا لسوق نشري جناح سلام وين اللي قدري بقى الله سبحانه ها نين أقويها الله سبحانه اللي قدري أنت عبادون أنتوا عسكرت تريسي ضدك يكون لاين لأنه يحكوا الدعوة شرين بالبهانة سجى أصلينية غير خاطب يجى أصلينية أي يكون دودي شرين ستة سؤر موضوع ورفيجا بيسوق نشرين أركب عن دي شيء غير خاطمه ولا ذي كوشة مغيب سكية يا شيء عدو هو أركن شيء كليه هو أركن عدو مال شيء كيجي مال سكنة كيك وحيرني بالله هي واحد ضيسي واحد كسكية ضي عدو مال شيء كيجي مال سك جندها جنا كيك دجال جندها وكبرودا وين عنده نفرنادا لا مها أمانك وعليه هبين إيماني وإناد هيجن نقطان شعبك وإنه هيجن نقطة ما ملكها خاتم استيد يا أمنيجا يا نبضة عياركم أيمن بقولال ويل باللوي بقولال هو يا قبلتي بقولال قبلت بعصي وقاطي بقولال كمان كن أردن يرى أبا أقول يرجعون نقطي عنده وين فرنادان عنده وين فرنادان وإناد وحوي شعب يعيدا يوحوي دولة دمانتي وإناد سيدا وحوي تشنك وشقسان هبين إيماني وين تسويتان دانتنا كوجرتا دانتنا كوجرتا إن هبين إيماني سويتنو أقول أمانك نيلاش أمانك عياركم يبادو ورفرين تارير خاتم يجي جارسيا ورقدها فيك بنتا بن أبوركا حاران تلقر لجي الجدية عندي صوص صارتي أي الله غفر ديا خير يا بركة هدير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.